dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay arrimaha la xiriira dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waxaana madaxweynuhu uu u ballan qaaday shacbiga Soomaaliyeed in qayb ka mid ah badda Soomaaliya aan laga tanaasuli doonin oo markaasi dawladda Kenya aysan ka aqbali doonin ay qaataan waxaana madaxweynuhu si faahfaahsan uga hadlay waqtiga uu soo bilowday arrinka muranka keenay ee sheegashada dawladda Kenya ee badda Soomaaliya iyo sidoo kale qaabkii uu ku bilowday iyo wadiiqooyinkii uu soo maray madaxweyne xasan sheekh oo arrimaha faahfaahinaya waxa uu yiri alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan wax yar u bidhaamiyo ama aan dib ugu laabto taariikhda qadiyadan badda ee Soomaaliya iyo kayska maanta hor yaalla maxkamadda caalamiga maxkamadda cadaaladda caalamiga kayskani annaga 2012 markaan xafiiska nimiday waan ugu nimiday wuu taagnaa kayskan warqadan isfahamka ana way jirtay go'aankii baarlamaankii xukuumaddii u dambeysay ku meel gaarka aad wuu jiray warqado badan oo iska hor imaanaya oo la kala qorqoray way jireen markaan nimiday annagu dad khubaro ah ayaan u saarnay in la daraasiyo meeshii laga soo bilaabay ee meesha wax marayaan iyo waxa aan xaq u leenahay iyo waxa kale waxa noo soo baxday inaan xaq u leenahay dawladda Soomaaliya in ay cadkaas badda ah ee biyeeda ka maqan inay soo ceshato inay tahay si sharci darro ah oo sharciga iyo qawaaniinta caalamiga aan waafaqsanayna looga qaaday warqadii isfahamkeed ayaan ka dacwoonay dacwad dhulkeena iyo biyaha aan leenahay ayaan dib u habeynay waxaan u sameynay khariidado cusub iyo maxaan ku yiraahdaa farsamooyinka lagu register gareeyo ama lagu diiwaan geliyo xuduudaha badaha iyo biyaha iyo dhulka la kala leeyahay iyo qaybaha ay kala yihiin biyo badeedka dal uu leeyahay waxaasaan isku dubaridnay waxaan geynay jamciyadda qurumaha ka dhaxayso warqadda isfahamka hore u jirtay badanaa dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay qabaan warqadda isfahamka ama waxa MOU-ga loo yaqaano in aanu ahayn wax oo yani sharciyan ku qabanayo warqadaasi waxa markii heshiiska la saxay berigii dawladda Kenya waxay gelisay waxa oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiiskeeda waxa loo yaqaan International Treaty Registry oo lagu diiwaan geliyo shuruucda ama heshiisyada caalamka heshiis caalami ah oo la diiwaan geliyay ayay ahayd annaga markaa u nimaday maxaa loo saxiixay ma khaladay ahayd yaa saxiix waxa soo dhan wuxuu ahay ma doonayo inaan dib ugu laabto laakiin warqadaasi ama isfahamkaas wuxuu ahay heshiis sida heshiis caalami ah loo register gareey dawladda Soomaaliya waan diidnay waan ka gadoonay waxaan geynay muxuu ahay in diiwaanka laga tiro waxaan ku dadaalnay in maxaan ku raadayay la baabi'iyo waanan hor istaagnay in jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiiskeeda oo sii wado qiimeyntii dhulka badda Soomaaliya Kenya loogu sameeyay markaan anagu soo dhameystiranay waxeenii oo aan diiwaan gashanay kadib khubaradeennii iyo taladoodii aan raacnay sidaas ayaa maanta ay ku timaday oo maanta